أولاً waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee dalka iyo dunida dacalaynta inaga daawanaysa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan walaalayaal waxaynu joognaa teendadii loo qoondeeyay maanta inay doorashada golaha shacabka ay ka dhacdo guddoonkiisu waxaan ogeydeen shalay ayaa halkan waxaa ka dhacday doorashadii aqalka sare ee baarlamaanka anigu taa ayaan ka qayb galay oo aan u tartamay hoggaankeeda sare waxaa ku guulaystay cabdi xaashi cabdulaahi oo aan halkan uga hambalyaynayo oday weyn oo Soomaaliyeed ah taasi way soo dhammaatay oo hannaankii dimuqraadiga ahaa ayay ku soo dhammaatay dhammaantayo intii guulaysatay iyo intii kaleba waxaa nagu waajiba inaannu u adeegno qaranka Soomaaliyeed aan u dhaaranay aanu ilaalinno saraynta sharciga dimuqraadiyadda iyo geedi socodka qarandhiska Soomaaliyeed walaalayaal maanta halkan waxaan u yimi inaannu garab istaagno oo u hiilinno xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliyeed oo halkan maanta ku dhan majority-goodii una diyaarsan inay doorashada ka qayb qaataan markii aanu soo soconnay waxaanu la soo darisnay xaalad adag wadada dalkii oo aad moodaba in dal kale laga dhigay oo military iyo taangiyo iyo ciidamo meel walba la dhigay laakiin dhan walba aan u soo marnay maanta teendadii baanu joognaa waxaan ku boorinayaa xildhibaanada golaha shacabka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay u turaan dalka oo ay doorashada ka soo qayb galaan doortaanna guddoon dalka samata bixiya oo suurto geliya dalka in hoggaan cusub oo himilada dadka Soomaaliyeed ka mina dhaliya loo doorto walaalayaal waajib culus baana saaran haddaanu nahay siyaasiyiinta iyo xildhibaanada labada aqalba kaasoo ah inaannu aayaha ummadda Soomaaliyeed ka talinno inaannu dawlad dhiska iyo dimuqraadiyadda iyo wadajirka ka talinno taas ayaannu maanta halkan u nimi lug baannu garoonka ku soo galnay gawaadhidayada waxaannu kaga nimi meel shishe waxaan leeyahay dalkani qalalaase iyo xasilooni darro uma baahna ismuquunin iyo aake iyo mataqaanaa kaarana horeba la isugu kari waayey sabankii waa la soo dhaafay wadaro gol isu tanaasul iyo Soomaalida oo isku tolan ayaa hormood inoo noqonaysaa insha Allahu tacaala guul iyo gobonnimo ayaan u rajaynayaa dadka Soomaaliyeed waanuna barbar taagnaanaynaa golaha shacabka ilaa ay doorasho xaq iyo xalaal halkan uga dhacdo insha Allahu tacaala intaasaan ku soo koobayaa waad mahadsantihiin bishaaro macamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya moobilkaaga simikaar la'aan habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung ugu horeyntii gal settingka moobilkaaga kadibna dooro simikaar manager sidoo kale dooro add mobile plan ku iskaan garee QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guulaysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone ugu horeyntii gal settingka moobilkaaga kadibna dooro Cellular sidoo kale dooro add Cellular plan ku aadi QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guulaysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM fiiro gaar ah ugu horeyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM mahadsanid